Sida hurdo la'aantu u saamayso dhuudhkaaga iyo heerarka sonkorta dhiiggaaga. Sidee hurdo xumadu u saamaysaa dheefshiid kiimikaadka iyo habaynta sonkorta dhiigga? Tayada hurdo la'aanta iyo hurdo la'aanta ayaa ah laba arrimood oo muhiim ah oo gacan ka geysta xaaladaha sida nooca 2 ee sonkorowga, buurnaanta, polycystic syndrome (PCOS), iyo cudurka beerka dufanka leh. Hurdo la'aanta, oo lagu qeexo in la seexdo wax ka yar 7-8 saacadood, iyo tayada hurdo la'aanta, halkaas oo qofku si joogto ah u soo kaco habeenkii, labaduba waxay kordhiyaan halista cilladaha dheefshiid kiimikaadka. Marka hurdadu ay xumaato, jidhku wuxuu soo saaraa cortisol xad dhaaf ah, hormoonka walaaca oo kordhiya caabinta insulinta oo kordhisa khatarta sonkorowga. Intaa waxaa dheer, dheelitir la'aanta hormoonka ayaa dhacda. Ghrelin, hormoonka gaajada, ayaa kor u kaca halka leptin, taasoo calaamad u ah buuxinta, ay hoos u dhacdo, taasoo keenta rabitaanka cuntada iyo rabitaanka cuntooyinka kalooriyada sare leh. Hurdo la'aantu waxay sidoo kale kicisaa caabuqa iyo walbahaarka oksida, taasoo sii kordhinaysa cillada dheefshiid kiimikaadka. Kaliya hal habeen oo hurdo xumo ma nagu saamayn kartaa? Iyadoo hurdo la'aanta joogtada ah ay leedahay saamayn qoto dheer, cilmi baarisyada qaarkood waxay muujinayaan in xitaa hal habeen oo hurdo xumo ah ay kor u qaadi karto heerarka cortisol, taas oo kordhinaysa caabinta insulin iyo khatarta sonkorowga. Waa maxay sababta hurdada wax ka yar 5 saacadood iyo seexashada goor dambe ay khatar u tahay? Isku dhafkan wuxuu carqaladeeyaa laxanka wareegga jirka, saacadda gudaha ee 2-4 saac ee xakamaynta hurdada, dheecaanka hormoonka, iyo hababka dheefshiid kiimikaadka. Marka muddada hurdadu ay aad u gaaban tahay oo ay dhacdo goor dambe oo habeenkii ah, wax soo saarka cortisol ayaa kor u kaca, dareenka insulinta ayaa yaraada, iyo cilladaha dheefshiid kiimikaadka ayaa aad u badan. Shaqaalaha shaqada habeenkii iyo kuwa sida joogtada ah u soo daaha waxay halis sare ugu jiraan inay ku dhacaan cillada dheefshiid kiimikaadka khalkhalkan awgeed. Haddii qof uu helo 8 saacadood oo dheeraad ah oo hurdo ah laakiin uu sariirta seexdo goor dambe, miyay weli halis ugu jiraan arrimaha dheefshiid kiimikaadka? Haa, iyadoo helitaanka hurdo ku filan ay faa'iido leedahay, wakhtiga hurdada ayaa sidoo kale muhiim ah. Hurdada saqda dhexe kadib waxay carqaladaysaa laxanka wareegga kaas oo nidaamiya hababka jireed oo ay ku jiraan hurdada, dheecaanka hormoonka, iyo dheefshiid kiimikaadka. Waxay ka caawisaa xakamaynta dareenka insulin iyo dheefshiid kiimikaadka gulukooska. Marka la carqaladeeyo, sababtoo ah jadwalka hurdada oo aan joogto ahayn, shaqada beddelka, ama hurdada oo daahdo, hababka dheefshiid kiimikaadka ayaa daciifa, taasoo keenta khataro badan oo sonkorowga iyo cayilka. Hurdada daahda miyay u muuqdaan inay leeyihiin kontarool gulukoos oo liita? Laxankooda wareega ee khalkhalku waxay saameeyaan shaqada insulinta iyo dheefshiid kiimikaadka gulukooska. Waxay sidoo kale u muuqdaan inay leeyihiin qaabab cunto oo aan caadi ahayn, rabitaanka cuntada oo kordhaysa, iyo heerarka cortisol ee sareeya, kuwaas oo dhammaantood gacan ka geysta xakamaynta gulukooska oo liita. Caadooyinka wax cunista ee xilliga habeenkii waxay sii xumeeyaan caabinta insulin, kordhinta khatarta cudurrada dheefshiid kiimikaadka. Ka waran xanuunada kale sida PCOS, cudurka beerka dufanka leh, ama kolestaroolka sare? Sidoo kale ma hurdo xumo ayaa keentay? Haa, hurdada liidata waxay saamaysaa dheelitirka hormoonka, taasoo keenta caabinta insulinta iyo shaqada dheefshiid kiimikaadka, kuwaas oo door muhiim ah ka ciyaara xaaladaha sida PCOS, cudurka beerka dufanka leh, iyo kolestaroolka sare. Hurdo la'aantu waxay sidoo kale kor u qaadaa miisaanka iyo bararka, labadaba kuwaas oo gacan ka geysta cilladaha dheefshiid kiimikaadka. Weydii sanduuqado. Jimicsigu ma yarayn karaa saamaynta hurdada luminta ee dareenka insulin? Haa, jimicsiga, gaar ahaan tababarka dhexdhexaadka ah ee xooga badan, HIIT, iyo tababarka xoogga, ayaa kaa caawin kara dhimista qaar ka mid ah saamaynta xun ee luminta hurdo la'aanta iyada oo hagaajinaysa dareenka insulin iyo shaqada dheefshiid kiimikaadka. Si kastaba ha noqotee, jimicsigu waa in si fiican loo sameeyaa subaxda, galabnimada, ama fiidkii hore halkii la rabay ka hor wakhtiga jiifka, sababtoo ah jimicsiga habeenkii waxay kordhin karaan heerarka adenosine waxayna farageliyaan tayada hurdada. Sidoo kale, yaraynta wakhtiga shaashada ka hor sariirta iyo iska ilaalinta cabitaanada kafeega ku jira waxay sii taageeri kartaa tayada hurdada iyo caafimaadka dheefshiid kiimikaadka. Waa maxay sababta isticmaalka kafeynta uu u carqaladeeyo hurdo badan markaan dayayno? Kafeyne waa kiriya habdhiska dhexe ee neerfayaasha kaas oo xanibaya adenosine, kiimiko kor u qaada hurdada. Shakhsiyaadka dadoodu tahay, awoodda jidhku u leeyahay dheefshiid kiimikaadka kafeyntu hoos ayay u dhacdaa, taasoo ka dhigaysa saamaynteeda wakhti dheer. Dadka dada ah ayaa sidoo kale aad ugu nugul hurdo xumida, taasoo la micno ah xitaa qadar yar oo kafeyn ah oo la isticmaalo fiidkii waxay u horseedi kartaa soo jeed dheer iyo hurdo kala go'an. Intaa waxaa dheer, isbeddellada dada la xiriira ee qaababka hurdada, sida hurdo fudud iyo baraarujin, waxay ka dhigayaan saamaynta kafeyntu mid aad u cad. Waxaa lagu talinayaa in dadka waaweyni ay yareeyaan qaadashada kafeyn galabtii iyo fiidkii si loo hagaajiyo tayada hurdada. Maxay yihiin xeelado wax ku ool ah? Ma hagaajinaysaa nadaafadda hurdada?
Nadaafadda hurdada ee wanaagsan waxay ku lug leedahay qaadashada caadooyin caafimaad qaba kuwaas oo dhiirigeliya hurdo nasasho leh. Xeeladaha wax ku oolka ah qaarkood waxaa ka mid ah joogtaynta jadwal hurdo oo joogto ah, inaad seexato oo aad soo toosto wakhti isku mid ah maalin kasta, xitaa maalmaha fasaxa ah, waxay gacan ka geysataa nidaaminta saacadaha gudaha ee jirka. Abuuritaanka jawi hurdo oo raaxo leh, ka dhigista qolka jiifka mugdi, aamusnaan iyo qabow waxay kor u qaadi kartaa tayada hurdada. Isticmaalka daahyada madow, mashiinada dhawaaqa cad iyo gogosha raaxada leh ayaa ku caawin kara. Ka fogaanshaha waxyaabaha kiriya ka hor wakhtiga jiifka, caffeine, nicotine iyo cuntooyinka culus waa in laga fogaado fiidkii si looga hortago khalkhal hurdo. Ku lug yeelashada farsamooyinka nasashada, ka fiirsashada, jimicsiga neefsashada qoto dheer, ama iskala bixinta iftiinka ka hor sariirta waxay kaa caawin kartaa nasinta maskaxda iyo jidhka. Helitaanka dhaqdhaqaaq jireed oo joogto ah, jimicsigu maalintii waxa uu kor u qaadaa hurdo fiican, laakiin jimicsiga xooga leh waa in laga fogaadaa ku dhowaad wakhtiga hurdada.